Chelsea oo ku dhaweynaya heshiis afka la gaarto Xavi Simons iyadoo Leipzig ay go'aan ka soo saartay iibka xidiga. Kooxda Chelsea ayaa si rasmi ah ugu wargelisay RB Leipzig doonista ay u qabto saxiixa Xavi Simons iyadoo wadahadallada labada dhinac ay si xawli ah u socdaan sida uu xaqiijiyay wariyaha caanka ah ee Florian Plettenberg. Inkastoo heshiiska uusan weli si buuxda u dhamaanin, Chelsea ayaa la rumaysan yahay inay ku dhowdahay inay heshiiska afka la gaarto xidiga reer Netherlands. RB Leipzig ayaa diyaar u ah inay iibiso Simons waxayna duldhigtay qiimo ka hooseeya 70 milyan oo euro, taas oo ka dhigaysa mid la heli karo marka loo eego suuqa xagaagan. Xavi Simons ayaa si weyn u iftiimay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, isagoo dhaliyay 13 gool isla markaana bixiyay 9 caawin, 39 kulan oo uu saftay kooxdiisa Leipzig. Kooxda reer London oo dib u dhis ku jirta ayaa u aragtay Simons xidig muhiim u noqon kara mashruuca cusub ee kooxda. Haddii ay Chelsea dhamaystirto saxiixa Simons, waxay heli doontaa ciyaaryahan qad dhexe ah oo hal-abuur leh, lehna waayo-aragnimo heer sare ah oo qaangaar ah, inkasta uu yahay weli daayar. Wararku waxay sheegayaan in kooxda Jarmalka aysan dib u dhigi doonin iibka haddii heshiis la isku afgarto. Chelsea waxay diyaar u tahay inay la tartanto kooxaha kale ee xiiseynaya ciyaaryahanka. Warbixintan waxay qayb ka ahayd barnaamijkii bandhiga ciyaaraha oo aan uga hadlayay wararkii ugu dambeeyay ee suuqa kala iibsiga. Haddii aad ilaa dhamaadka muuqaalkan la soo gaarto, ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto sidoo kalena aad sii share gareyso. Haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta nagu xiran. Mahadsanid.